السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. إن شاء الله ورم بدنين بين كورن ضنا هدي ربي حكمه موضوع الربا أي عموما وحنفل يعني لقى هذلي الكسب الحلال أما حكسي حلاشة وحلقات المامي يعني مركز إنه الربا كورنه في الشريعة إلهي سبحانه وتعالى حكم عدبو كدتشيي ومسلمين تسكوها فخصنتها أصليا إن الربا حرام تهي وقرآن كسوة أروري وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كسوة أروري وبعض العلماء إجماع صور نقلنا يعني إن لقوا كل سين آيات كمثال كسوة أروري وحكم دين إلهي وأحل الله البيع وحرم الربا إلهي بيعه وحكى لك قد الشضة هي التجارة دواب النية الربا ده السوادي يعني الربا ده ينانا يبايع هين بار ربي تلمامية إلهي وحلي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وركوا إيمانك لغا هلي وبا إلهي لي ورا لك دور صدا وكتغ ربا ده وحي كهالي haddii aad tihiin kuwa mu'miniina haddaad diidaan baa ilaahay yidhi inaad ribada iska daysaan dagaal baan idiin iclaamiyey ogaada baa ilaahay leeyahay dagaal alle iyo rasuulkii iyo idinka idiin dhexeeya saa ogaada macnuu waxa weeyaan ninkii raba inuu ilaahay la diriro fadal ribada qaado oo cun ama bixi ninkii raba ilaahay iyo rasuulkiisa inaanu dagaal la gelinowna ribada iska daa baa ilaahay leeyahay وحكى إلهي تلمامي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس آخر مركز الله تاغانا كو الربا ضعما اسمه سو تاغان با إلهي لي إلا إيوه سيدي النوالا نوقب على سنة يبي سو تاغان تخبط قفان استاغي كرين بالانس كلهم سيهي إلهي وحلي يمحق الله الربا ويربي الصدقات إلهي هو بركة تريا وترتريا ربدا وحي الصدقاء أنا ألا وهجاتشنيا آيات بدنا قرآن كسا أروري إلا علماء دا يدهدان شن عقابات با قرآن كسا أروري ومدي حرب قاطهي ومدي تخبط كايهي إلهي سبحانه وتعالى وكت المامين أنا مرنا بصينا وبنانين ومدي محققين وشيقين نويهي ومدي هدات استحلال ستكفر وياهي ومدي خلود في النار ياهي شنطة عقوبات با آيات كسورة البقرة بيكو جرابي علماء المامان هدين السنة النبي قولنا مادنا عليه الصلاة والسلام إيانا حديثك صاررتي واترى بضنتي وحكم إذا حديثك بخاري مسلم بورين إيان النبي قول عليه الصلاة والسلام تضبط وحلاقك فقادة السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات تضبط لو هلاك سماء وحلاقه كدرك ابو النبي يري وما حيبه إلهي رسولك سيو تضبطاس وحو النبي يقول وقال لي شرك بالله إله الله شريك ياله سحر للسماء يددك لغو الله قتل نفس دل نفل قويو حق در لغو قويو ربا الله عنه xoolaha goomeedoo la liqo goob dagaaloo jihaadoo laga dhabar jeediyo laga baxsado dumarka muxsanaadka dumarka dhowrsoon ee aan xumaha lagu aqoonay ogeyn ee mu'minka ah oo xuma lagu tuhmo lagu ceebeeyo qadfi lagu sameeyo intaasba nabigu wuxuu ku sheegay inay yihiin maxay kuwa lagu halaagsamo toddoba ka mid ah waxaa kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wassalaam habeenada ka mid ah inta la dheelmiyey xadiidka bukhaari siduu sheegayo ayaan waxaan soo maray buu yidhi duul nin biyo ku dhex jira iyo nin biyaha ka baxsan webi soconayo nin dhex taagaya midna ka baxsan yahay oo ka baxsan ka ku dhex jira markuu israa biyaha ka soo baxba ka kale dhagax buu ku tuuraya afka kala dhacaya oo dib buu ugu celinaya markaasaan idhi buu yidhi war waa maxay kani dhagaxa lagu tumayo meesha ka bixi kari la waakilu riba buu jibriil ugu jawaabay kani waa kii ribada kuwii cuni jiray weeyaan xadiid kale waxa uu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wassalaam inuu malcuun yahay lacana rasuulullahi sala allahu calayh waalihi wasalam jaabir ibnu cabdillaah leh xadiid saxiixa waxaa
nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lacnaday oo lacno korkiisa ka yeelay ayo ninka ribada cuna iyo ninka ka wakiilka ah iyo ninka qoraya iyo ka markhaatiga ka ah wuxuba ka cunaya iyo ka aakilu riba wa muukilah ka cunaya iyo ka cunsiinaya yacni ribada nin baa lacagta qaadanayo dadka guraya waa aakilu riba midna waa kan la guro oo siinayo waa muukilu waa kii ribada cunsiinayey kaatibka ka qoraya ee ka shaqaynaya meesha qoraya kuwa markhaatiga ka noqonaya hum sawaabu nebigu yidhi lacnadda intaasi waa ku sibantay intaasiba lacnadda waa ku sibantay waxaa kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo laga soo naqlinayaa xadiid la asixinayo hal dirham oo ribo ahi hal faran oo ribo ahi yacni inuu la mid yahay ama ka adag yahay 36 geero la zinaysto faran iyo zina la isdhinac dhigaya markaase waxaa la leeyahay zinada labada fudud waxaa dhib badan baa la leeyahay maxay faranka ribada baa la tilmaamaya xadiid kale nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu hadlay oo khudbadeeyey oo ribada iyo arrinkeeda ka warramay ayuu yidhi ina dirhama yusiibuhu arajulu min alriba halka dirhama nebi qof ka soo gaadha ribada acdamu cinda allahi fi lkhati'ati min 36 zaniya yazniha arajulu ina arba ariba cirdu rajuli lmuslim 36 jeer aad zinaysato ayay ka xuntay buu tilmaamaya ribooyinka kuwa u foosha xun lana waxaa ka mid ah walaalkaa cirdigiisa aad calaaliso idan axaadiistaasi xadiid kalea wuxuu sheegayaa oo saxiix ligayri culammadu ay ku tilmaamayaan alriba 72 baaba ribadu inay 72 albaab 72 baab inay tahay waxa ugu yar baa la yidhi mithlu ityaani rajuli ummah ninkoo hooyadii wax ka daya وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه أحاديث مركين إغنو waxay tilmaamayaan iyo aayaadkii quraan ah inuu nidhi 5 shay oo ciqaab ay ku sheegayaan iyo axaadiistan marka la isku daro waxay tilmaamayaan dunuubta ugu waaweyn ee la galay inay ka mid kabaa'irta gaalnimada iyo dilka iyo kuwaasay la saftahay saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله دول ظاهرا موقتة كمان نقطبوا نبقوا الزنا دي الربا دو وحان لسكو إنكرينو عادي أما النقضان إلا إيا كواسي اللي عقابتي سي مطيستين اللي عقابتي سي إياكو سودقيس وحانو نبقوا الشيخي عليه الصلاة والسلام آخر الزمن ساعد هرتي القيامة هرتي waxyaabaha caan bixi doona inay saddexdani ka mid tahay ribada iyo zinada iyo khamriga cabistiisu inay noqon doonaan maxay muntashir wax faafa inay noqon doonaan war dunuubta kuwa aan la dhaafin iska ilaaliya buu nebigu yidhi toobadda xooggan u baahan waxaa ka mid ah alguluul guluulku waa xoolaha muslimiinta ka dhexeeyo la xado faman galla shay-an ataa bihi yowma alqiyaama ninkii waxadaa maalinta qiyaama isagoo xambaarsan buu la imanayaa wa aklu riba faman akala riba bucitha yowma alqiyaamati majnuunan yatakhabatu ثم قرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المص سيدي كي شيطان دردري waa shay miisaanku ka lumay sidiisoo kale u soo kacayaan baa la yidhi qof riba ma badsada baa nebigu yidhi ilaa iyo cidhibteeda dambe wax la-aan bay noqotaa dee maanta dhaqaalayahanada dunida waxay isku raacsiisan yihiin akbar mashkilaadka caalamka haystaa inuu interestka yahay waxaanay isku rumaysan yihiin waagii hore muddoy qaadan jirtay hadda qaabka loo wado more or less every 10 years mar inuu recession dhaqaalaha dunidu inuu geli doono 2000 maxay 8kii buu galay haddana imikuu galay waa recessionis dumistani waa interestkan tirada badan lee laysa saarayo soo duuduuboo nebigu wuxuu leeyahay ribadu inkastoo la ay badato caaqibadeedu waa wax la-aan bay dhashaa yaraan ayay dhashaa buu nebigu tilmaamaya imaamu nawowi intaasi waa qur-aan iyo xadiidkan idiin soo naqliyo kooban imaamu nawowina wuxuu leeyahay
أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في ضابطه وتعاريفه. مسلمين تو اسكو وافقسنت الربا إنay xaaraan tahay haba isku khilaafaan masaa'ilka qaarkood kani min riba mise riba maaha ama tacriifka ribadu intuu yahay waa masaa'il khilaafiyo hoose waa ku jiraan ama cumuumka ribadu inay mamnuuc tahay waa la isku waafaqsan yahay taasi waa diinta islaamiga oo diima samaawiga hore miyay ku banaanayd waa maya diinta yahuudda haysatana kuma banaanayn ilaahay baaba qur-aanka inoogaga warramo wuxuu leeyahy waxyaabihii lagu ciqaabayay maxaa ka mid ah wa akhdihim alriba waqad nuhuu canhu baa ilahay yidhi wa akhdihim alriba waqad nuhuu canhu wa aklihim amwaala annaasi bilbaطili waactadna lilkaafiriina minhum cadaaban aliima ribaday qaadanayeen baa ilahay yidhi iyadoo laga reebay kutubtoodana saasaa ugu qoran fii safri tathniya isxaaxa 23aad saasaa ugu qoran iyo waxyaaba ay ta'wiiliyeen oo sheegaya yuhuud waxay dhahdeen inaga dhexdeennay mamnuuctay inta badan yuhuuddu riba isma siiyaan ma kala qaataan laakiin bay yidhaahdaan ma cidda kale umamiyiinta ka gur waxaad ka guri karto umamiyiinta maa cala almu'miniina min sabiil weeyaan laa calayna min sabiil kiniisaddu kristanka hadda agtooda miyuu ku bannaanaa maya رجال الكنيسة يا مدحدود يا مجامعدود يا يسوي من جرين waxay isku waafaqsanaayeen ribadu tahriim qaaطع aynaytay mamnuuc aynaytay حتى الآباء اليسوعيين عبارات bay soo sheegayaan ay sheegayaan إن المرابين يفقدون شرفهم فيه kuwa ribada cunaa sharafkooda way waayayaan ahal uma aha in la kanfo bay leeyihiin wadaadda kristana kuwa ribada cunaa akal uma aha in la kanfo saa daraadeed ولم يكن تحريم الربا قاصرا على أرباب الديانتين هذا بقى لبدا الديمود قرد حارنتنمدو كما كوبنين بل التاريخ ذا بيليين تاريخي هذا مركز ديبو لوغو نقضو dadkii xikmadda iyo aragtida u saaxiibka xataa falaasafadii hore qaybo ka mid ah aristo iyo aflaatoon iyo filosofadii shahiirka ahaa siduu aflaatoon maalan ku qorayo kitaabkiisa alqaanuun laa yaxillu lishaksin an yuqrida biriba buu leeyahy qof uma banaana ma aha buu leeyahay in dadka ribo wax lagu amahayo marka hadday falaasafadii qadiimka ahay tahay iyo hadday saddexdii diimood oo cirka ka yimid tahay intuba xataa carabtu jaahiliyadii hore nabiga ka horeysay calayhi salaatu wasalaam ribo way isticmaali jireen laakiin haddana inay xuntay way garanayeen cahdigii intaan nebigu nebi noqonin calayhi salaatu wasalaam dhowr iyo 20 jir markuu marayayba kacbada daad qaaday kacbada waxay ku taallaa meel dooxa ah bariya dambaba uu qaadi jiray imka meel hoose iyo meel biyaa maraan baa loo sameeyey laba buuro dhexdood weeyaan marka roobab xooggani markay da'aan meesha biyo xoogaa mari jiray kacbadii roob baa dumiyey markii roobku dumiyey ayay quraysh tiri aan dib u dhisno laakiin waxay yidhaahdeen shart kacbada waynu dhisaynaaye waar xoolo ribo laga helay iyo xoolo dad laga dhaco dulmiya xoolayo way yidhaahdeen kuwa iyo inaan ilaahay kacbadiisa marraba ku dhisin yani way garanayeen inay xun tahay walidaalika bay waxay ka ilaaliyeen kacbada inay ribo ku dhisaan sida awgeed bay lacagtii kale xalaasha ay bidayeen ay gaadhi weyday inay kacbadii oo dhan wada dhisaan dabeetana waa kuwan ka tegay intan la yidhaha xijri ismaaciil inta yara qoolaabta yari wareegsan tahay intaas kacbaday ka mid tahay kacbaday ka mid tahay waxay ahayd daartu cahdigii nebi ibraahim marka lagu qiimeynaya in xaggan hore lasoo mariyo oo intaasoo dham ay gudaa gasho laakiin markii ay kharash waayeen ayay dhahdeen daarta aan yarayno waa la yareeyey inta kalena aan calaamadino un markaa waa la calaamadiyey inta tan oo daartii in ka yar intii ay ahayd cahdigii nebi ibraahim ayaa la dhisay idan jaahiliyadaa carbeed iyagoo ribadoodu inta badan tan daynta ahayd qof baa dayn ama ahaynaysaa waqtigii markay gaadhow iska bixin kari waayo miyaad bixin baad leedahay mise ribaad ku daraysaa ribaan ku daraya hadduu yidhaha muddo kalaad siinaysaa waa dhaqankoodii ee siduu ahaa su-aasha isweydiinta le waxay tahay markaa oo haddii falaasafadii hore la yaqaanay diintii yuhuudeed tii kiristanka tii muslimka wixiiba hadday xaaraan ku tahay baashuna maanta aan dunida ribo mooyaane wax kalaba ay adag tahay in la hayo xaggee wax iska weydaarteen diimihii xaggee laga soo dhaafay falasifadii xaggee laga soo dhaafay xaggee wax ka soo baxeen goormay noqotay interest iyo ribadu wax dhaqaalaha dunida u fiican
yurub kristanka maadaama ay xaaraan ka ahayd yuhuudda dadka kale way isku dayeen inay siiyaan iyagana laakiin wadcigoodii ijtimaaciga ha muu saamaxaynin markaa way adkayd qarnigii 16aad markay ahayd oo noocun ma renaissancekiiyo waxaanay sheegayaan fufka dambe uu soo bilaabmayey ayay yurub inay diimaha ku yara madax adeegto soo bilowday 1593 markay ahayd ayay waxay yidhaahdeen dadyowga jilicsan ee aan xoogsan karin ee iyagu shaqo geli karin hantidooda ribaha loogu badiyo biidnin min alqaadi maxkamaddu markay xukunto agoonta yaryar iyo dadka caynkan ee aan lacagtooda ku shaqaysan karin si aanay lacagtooda uga dhammaanin ribaha lagu bixiyo dad ha la yidhahdo interest baa bixinaysaan laakiin ha ogolaada maxay qaadiga maxkamadda jooga waa markii koowaad ay soo banneeyaan inay ribo bixiyaan kadib nimankii madaxda ahaa iyo boqorradii iyo dadkii xoogga waaweynaa iyana way iska bilowdeen inay wax ribo ku qaataan oo matalan luwiskii 14 baan leeyahay 1692 dayn ribowiya buu qaatay xataa baabihii 9aad 1860gii boobka laftiisu waa qaatay bay yidhaahdeen dayn ribo ah laakiin waa qoladii waaweynayd una weli bulshada iyo mujtamaca waa ka xaaraan goormuu haddaa qaanuun noqday thawra alfaransiya markay dhacday thawra alfaransiya waa wada maqasheen soo maaha thawraddii waddanka faransiis ka dhacday boqortooyooyinkii baabi'isay boqorkii u dambeeyey iyo wadaadkii kiniisadda xiidmihiisay ku baktiyeen midbaa inta xiidmihiisa lasoo saaraa kii kale looga dhigay maxay boqorka u dambeeya bay yidhahdeen waa inaynu ku baktiinaa xiidmaha wadaadka waayo wadaadada kristanka ee meesha joogay dowladda dulmigeeday taageersanaayeen dabeetana dadku markuu thawradda sameeyey wadaadkii iyo dowladdiiba waa la isku daray oo waa la laayay oo waa laga wada takhallusay sidaasi awgeed ayaa aljimciya alcumuumiya fi faransa ayaa 12 Oktoobar 1779 qaanuun soo saartay leh ribadu waa banaantay waa awal qaanuun yurub ka soo baxa oo ribo banneeya markaas baa la soo saaray oo lagu baneeyey ribadu dhaqaale ahaan waxba ma kordhiso dhaqaalaha dunida hoos bay u dhigtaa walidaalik tusaale fudud baan idin siinayaa marka recession duwalku galaan dhaqaale burbur u yimaado ee dhaqaaluhu dhulku galo waxa koowaad dawladdu samayso ma taqaanay interest-ka hoos loo dhigaa si dhaqaale burburka looga soo kaco maalan markuu maraykanku dhaqaaluhu burburay shirkadaadkii kaceen ee wixii kaceen interest-ka 0.5 baa la gaadhsiiyey Japan 0 baa la gaadhsiiyey 0 interest dhaqaalayahanadu waxay leeyihiin 0 interest markuu yahay ayaa dunida dhaqaaluhu ugu kacdoon badan yahay oo uu dhaqaalaha dunidu sameynaya maxay horumar saa daraadeed duwalku markay recessionku ku dhaco dhaqaale xumadu markay wadannada ku dhacdo ribada hoos loo dhigaa waxay dhahdeen ribadu hadday 0 tagtana waa dhaqaaluhu halkuu ugu fiican yahay hadda maxaa 0 looga dhigi waayo wadannada horumareen dee ribada inta xoog galaa qaadatee may ogola inta xoog gale shirkadka waaweyn iyo inta xoog gale iyo bangiyada inta dhaqaalaha haysata ayaa dee dadka dhiig miirata waayo muraabigu waxay dhahdeen ninka ribada qaadanaya waa shaqo aan loo dhididin oo xoolo keenta bay yidhahdeen alaslu lacagtu lacag ma dhasho alaslu fi liqtisaad lacag ma dhasho lacagtu waa waxa lagu qiimeeyo juhdiga qofka bini aadamkii bixiyey laakiin shaqaa wax dhasha asalku waxa weeyaan shaqaa wax dhasha muraabigu wuxuu rabaa inuu fadhiisto oo lacag qaato wixii khasaare ana inuu dadku ku dhaco muraabigu ma khasaaro isagu waayo isagu lacag buu ku amaahiyey lacagta lagu amaahiyey kuma xidhna mashruucaaga inaad ka faa'iideeyo inaad ka khasaartay ilaahumay kaa wada dunto isagu lacagtiisii buu leeyahay interest-kii marka waxay dhahdaan asalkani waxa weeyaan ninka wax haystaa ma khasaaro waddanka wixii khasaare ka dhaca xoogsatoodu ha qabto interest-ku caynkaa macnihiisu waddanka wixii khasaare ka dhaca xoogsatad iyo dadkan dhididaya
iyagu ha ku jiraan inay ama khasaaraan ama faa'iidaan amaa ninka wax haystaa ee muraabiga isagoo lacagta bixinaya isagu waxa weeyaan forever interestkiisuu leeyahy adigu ama khasaar ama warshadaadu ha kacdo ama shaqadaad ku abuuratay ha baaba'do ama waxay doonto ha noqoto isagu waxa weeyaan waa laabud inuu faa'iido isagu waa masuun markaa waxa laga ilaaliya waxa khasaara la yidhaahdo waxay yidhahdaan maadaama aanu jirin dadka lacag ay guranayaan aanu jirinna dhaqaalaha waddankana burbur baa ku dhacaya bay leeyihin waayo markay ribadu kor u kacdo waxaa yaraada dadka shaqada samaynaya maalgelintaa yaraata dabeetana ashyaada qiimahooda kor u kacaan idan markaa baabkan la eego oo dhan isku soo duuduub logiska waxba isku badin mayno waayo wakhtigaa aada u yar si aan u sharaxno laakiin waxaynu sheegaynaa ribadu dhaqaalaha faa'iido umale bay yidhaahdaan marka la eega bay leeyihin bulshada iyo isku xidhnaanteeda iyo akhlaaqiyaadkeedana way dumisaa waayo dadka badh bay ka dhigtaa anaaniyiin iyo al-athara wal-anaaniya hunguri dheeraado iyagu wuxuun qaadanaya miskiinkanna dee culayska haysata la yidhi waxbaa lagu daymiyey miskiinkan dhigiisa la cabaya ee habeen iyo maalinba dhididaya ee wixii uu bixiyey iminka dowladahan yaryari waay afrika ay u kici weyday waa ribaday reer galbeed sameeye siiyeen bay u kici weyday waayo afrika waxaa la tilmaamay ribooyinkii la siiyey dhammaanteed intay bixiyeen oo labanlaabkeed bixiyeen ayaa haddana intii la siiyey in ka badan weli lagu leeyahay bal aduu qiyaas waxay lacag amaahdeen oo dhan afrika way celisay way bixisay bale lacag kaloo badan oo dheeraaday bixisay haddana weli waxaa lagu leeyahay maxay wixii la siiyey ka badan baa lagu leeyahay magacay u qurxsadeen waxay yidhaahdeen dowladaha deeqda bixiya ma deeq baa dunida cidisiisiisaa ma jirto deeq waddan la siiyey halku ka odhan lahaa dowladaha dadka dhiig miirta ee ribada ka qaada ayaa lagu odhanaya dowladaha deeqda bixiya deeqi ma jirto waa riba waa intaa 1 bilyan la amaahiyo waddanka 10 sannadood ku bixinaysaa 20 sannadood ku bixinaysaa dan waxa laaliya wixii waddanku shaqaynayo dhan waa inuu dib u celiyaa siduu dib ugu celin karayaa waxaa la leeyahay bangiga imanaya si dakhligaaga u bato cashuurta kordhi kan ka samee cashuuraha marka la kordhiya cashuurta yaa bixiya ma tujaartaa bixisa maya koob shaaho kastoo aad cabto badh bay dowladdu leedahay soo saa ma ogid waxaa laga yaabaa halkan inaad istirahdaan cashuur baa la bixiya soomaaliya ma cashuur baa la bixiya ha cashuur baa la bixiyaa waayo dowladdu markay cashuur qaado ninka taajirka ah bay mar ka wada qaadaysaa ninka taajirkaa markabka keenaya dabeetana waxaa leeyahay marka waa cinka 1 milyan oo cashuura shub 1 milyan taajirku yuu xisaabinaya markaa waa kharash buu leeyahay dabeetana jawaankii sonkorta ahba $3 baa ku kordhaya $3 ayaa laga qaadaya koobkaad cabtaba badh bay dowladdu cabtay taajirka iyo bangiguna badh bay cabbeen shaarkaad iibsataba badh bay leeyihin idan aakhirka qofka dhiiggiisa la cabaya waa qofka suuqa jooga waa miskiinkan wax iibsadee magaalada jooga weeyaan ninka tujaarta iyo dowladda iyo wuxuu dhammi ninkay dhiiggiisa cabayaan waa miskiinka kan sida awgeed bulshada dhexdeeda way baabi'isaa oo xidhiidhkii bulshadu ay lahayd oo dhan baa luma bulshada waxay u qaybisaa ribadu dabaqo aan weligeed khasaarin marka waxay dhahaan lacagtu iyagunbay ku biiraysaa bangiyada iyo insuranska kuwa lacagtu iyaga ku biirtaa qolada ribada qaadata lacagta waddanka oo dhammi marka iyaguna way sii karayaan bulshaduna way sii faqrinaysaa bulsho kastoo dunida joogta way sii faqrinaysaa waayo dowladdu khadamaadka matalan dowladda joogtaan khadamaadkii ay dadka ahayd in la siyaabay bixin kari waayeysaa biyihii laydhkii khadamaadkii wadooyinkii kan waxa ka waa bixin kari dowladdu maxay samaysaa dowladda lacag bay amaahataa lacagta ayaa laga amaahdaa kuwan ribada laga amaahdaa dowladda waxaa la yidhahdaa lacagta intaasaad ku bixinaysaa lacagtii xaggee laga keenaa adigaagan unbaa lagugu kordhinayaa adunba marqaaga la cabaya markaa dowladda iyo tujaarta iyo kuwa bangiga maraqooda iyo dhididkooda waxay cabbaan miskiinkan daalay ninkan uu shaqaynaya 8 subaxnimo inta la kiciyo ilaa 4 galabnimo rooraya kaas baa dhiiggiisa la wada cabaya dadkoo dhammi sida awgeed bulshadu laba dabaqay noqotaa dabaqo ru'uus al-amwaal iyaguma shaqeeyaan way shaqo uma baahna mana khasaaro lacagtiisana meel khasaaraysaba geyn maayo bangigaasay taallaa bangiguna dadku amaamaahinaya isagoo iska fadhiya ayay wixiisu u socdaa isagu markaa meelahaas unbuu fasax tegi meelahaasu isagu ku maqan yahay wax shaqaana ma hayo bunuugtu markaa waxay yidhahdaan waxay qabtaan waa taajiru lquruud
bangi horumar iyo bangi tijaarada bangi beeraha iyo bangi waxaasoo dhan waa magacyo lagu bixiyay waxba kama jiraan waxa qudhay jira waa maxay waa nimanka ka baac mushtareeya deynta bank waa sida xeerka u yaalla bangigu wax weeyaan inuu deynta taajirka deynta u yahay qaanuun kastoo bangigu yaalla waa intaa dowladdu qaanuunka ay u dhigtay ninkan waxa weeyaan wax kale inuu iibiyo looma ogola waxba ma galo wuxuunbuu isagu iibiyaa maxay deymuhu iibiyaa marka isagu deynta ayuu ka baac mushtareeyaa haddaba fi shariica alislaamiya deyntan dursaar kale ay sheegayaan sharciga islaamiga iyo kii diimee hore iyo kii dhaqaalayanadee hore iyo kii falasafadee hore dhammaantood mamnuuc buu ku yihi ribadu ayan kaanat dhammaanteed waa mamnuuc fi shariica alislaamiya maxaa riba la yidhahdaa marka aan tagna haddaba haddaynu isla garannay ribadu sharciga islaam wuxuu ka qabo sharciyadii diimii hore waxay ka qabeen falasafadii hore waxay ka qabto dhaqaalayahanada maanta dunida joogaa siday u arkaan oo ay leeyihiin zero riba unbaa ugu fiican waddanka haddii la rabo dhaqaalihiisu inuu horu maro dulmiga ijtimaaciga ay ku samaynayaan bulshada oo dadna la leeyo sida dameero ay u shaqaynayaan inna iska fadhido khasaaroo dhabe uu ku dhacaya un intan xoogsanaysa shaqaynaysa kaasi waa inaanu diin ahaan iyo dhaqaale ahaan midnaba faa'iido lahayn ribo waxaa timi markaa noociyaadka ribada ama qaybaha ribada culammadu inta badan ribada labay u qaybiyaan mid waxay dhahaan riba albuyuuc ribada baaca mushtarka midna waxa la dhahaa riba alquruud ribada deynta gasha si kale haddaynu u tilmaamno mid waxay dhahaan riba nasii'a ribada nasii'ada annasii'a iyo ta'jiila wa ta'khiir ribada dib u dhigista oo waa maxay waa hanti in lagu amaahiyo waktina lagu qabto ziyaadana lagu saaro uun ziyaada lagu saaro 3% baad bixinaysaa 4% 5% 6% waxay doontaa ha noqoto waa lacag lagu siinayo oo maxay ziyaada aad ku bixinayso ziyaadadaasi waa maxay muqaabilkeedu ilan tijaaro kuma adgelinay tijaaro kumay siin tijaaro maaha wax kale ziyaadadan maxaa muqaabil u ah waxba muqaabil u ah zamanka lagu siiyey ribada nooca kale waxaa la yidhaha riba alfadl riba alfadlu yani ضد النقص waa ribada dheeraadka waxa weeyaan laba jinsi oo isku nooc ah sharcigu ma ogola inay kala bataan xagga wasniga iyo kaylka kii lagu iibsanayaba waa ribada tani waxay yidhahdaan waa min baabi dhariica baa loo mamnuucay sadi dhariica si aan ta kale loogu gudbin maalan dahab haddaad ku iibinayso waa inuu miisaan isleeg uu yahay yadan biyadina uu yahay haddana la kala qaato dahabku amaah ma galo kaygu waa 23 kaaguna waa 21 ma leh waa miisaankunbaa la saarayaa haddaanad ku qaadanaynin xor baad u tahay suuqa ka iibso lacag siiso lacagtaada ha dhow waxaad doonaysa ku iibso ama 24 ku iibso ama 20 aday kuu taalla waxaad ku iibsanayso laakiin haddaad dahab ku iibinayso waa inuu noqdaa maxay miisaan isleeg sidaa awgeed 6 shay culammadu waa isku wada waafaqsayin inuu yahay riba marka riba alfadliga la joogo ribada kalena iyana waa la isku waafaqsanyay haddaba markaynu soo duuduubno fuqahada badh ayaa sheega shaaficiyada oo kale riba lyad oo labada shay ribowiga in mid dib uu dhigmo waa riba iyana laba dahab oo isleeg baabaynu siisanaynaa laakiin isku iibsanaynaa laakiin mid baa dib loo dhigay qabd alciwadayn taakhiiru qabd alciwadayn waxadihima ma banaana isku soo duuduubo labadaasunba isugu soo noqonayaan riba alfadliga waxaynu nidhi sababta loo taxriimiyey waa sadan lidariica waa inaan riba nasii'a aw riba alquruud inaanay ku gaadhsiin baa loo mamnuucay markaan soo duuduubno oo haddaa maxaa xal ah nin baa lacag haystaa kuma shaqaysan karo ama shaqo ma garanayo haddii aanu bandhiga dhiganin oo bahasha guranin sidee baa xal loo helaya shareecada islaamiga waxay ogoshahay maalka iyo juhdiga in la isku daro dabeetana waxaa ka soo baxa la wada yeesho ka soo qaad waxaan warshad baan samaynayaa bangigaan tegay hadduu bangi islaamiyayey warshadaan u sheegay iyo waxay ka shaqaynaysa iyo suuqaan u hayay iyo waa kan iyo wixii baanu ku heshiinay
bankigu lacagtuu bixinaya oo wuxuu gelinayaa warshadda inaan helo waxaanu ku heshiinaynaa waxa weeyaan markaa nidaam mudaarabadu waa maxay wixii ka soo baxa ee dheefa inaanu wadaagno waxaa laga yaabaa bankigan in isaani uga faa'iido badantay maalan wixii soo baxa 30% baad leedahay أنا 70% بان ليه أما عكسيها 50-50 لين 40-50 لين سين دونا نوجه هشينو وحي كصوبها وهذا يحب السبب بحوايانا لأن جهد جيجي من خسارة يا سنة وحي خسارة قاعدة مالك أبو خسارة يعني مثل ورشتي بردسناي واشقيناي وحي خسارة يمي 10% خسارة بس عقلي 10% كأنك مالك قبايا أنا هنا أنت أنك شقيني مشهر لي ما وقلا mushaharkaygu waxa weeyaan wixii ka soo baxay unbaan wax ku leeyahay aniguna xooggaygii iyo juhdigaygii ayaan khasaaraya idan labada qof ama way wada khasaarayaan ama way wada faa'iidayaan laakiin in la yidhaahdo miskiinkuna mar kasta khasaaraha ha qabo taajirku ama ninkan maalqabeenkina mar kasta faa'iido isagu ha qaato sawaan adigu ama khasaar ama faa'iide taa sharcigu ma ogola taas ribadiya laakiin hadduu ogol yahay labadaba marka waa mudaaraba waxbaanu wada leenahay waana suurtagal markaas sida tan inay uga faa'iido badato waxa kale sharcigu baneeyay bayc salamku waa in maalka la horeysiiyo shayna uu dib u dhaco مثلا lacag baan u baahnay beertaydii inaan falo waxaan u baahnay lacagna ma haysto ima inuu mudaaraba ila galo daan wada shaqaysano ama se inuu muqaddam wax iga iibsado oo waa maxay wuxuu leeyahay lacagtaan ku sii siinaya laakiin hadhow dee lacag soo celin maysid waxaan kaa rabaa 40 kintaal oo galleeya markaad galleeydu ku soo go'do 40 kan isagu muxuu ku falayaa wuxuu ku falayaa qiimahaad wax ka dhimaysaa ilaan lacagtu ku sii amaahiyay isagu hadhow isagu suuqiisa wuxuu doonaa ka siisto mesela hadduu qiimo ahaan lahaa suuqa markaan joogo 40 in la iga siisanayo isagu lacag muqaddam u 38 kale iga siisanaya marka ana lacagtaan u baahnay isna raashinka inuu hadhow ka baac mushtaraysi u baahan yahay ka waa loo galay waxbaanu kala iibsanay lacag baan ka qaatay sicir baanu ku heshiinay isna hadhow waxaan siinayaa maxay raashinkii soo baxay baan siinayaa kaasina waa qaab kale waxa kaloo loo ogol yahay bayc muajala oo thamanka la kordhiyo mobilka kan wuxuu suuqa ka joogaa $500 waxaan ku yidhi 500 ma haysto aniga 600 dayn iga sii okay way iga sii markana waxbaanu kala iibsan laakiin qiimihii suuqa oo qiimo ka yara sareeya ayuu igaga iibiyay maadaama aan maxay dayn ahaan ku qaadanayo iyana taasina waa bannaan tahay waxa kaloo bannaano sharciyadu bannaysay alqard alxasan dadka in afraad iyo mujtamac iyo xukuumadba in wax la maahin karo oo nabigu wuxuu ku tilmaamayaa dirhamka labada dirham ee deynta ahi dirham sadaqa bay u dhigmaan yani inaad anoo baahan $1,000 deymiso waxay u dhigantaa 500 oo siisma xagga ajarka marka laga eego waayo baahidaydina waan qabsaday adigana lacagtaadii waan ku soo celinayaa marka kan waxaad faa'iideysaa waa ajar ma faa'iideysid maxay iyo xidhiidhka walaalnimo iyo bulshadan aad wax u qabatay baad faa'iideysaa laakiin hantidaadu waa tii uun xalka kale shariicada islaamiga banaysay waxa weeyaan dee waa sadaqaadkii waa deyntii waa zakadii مثلا zakada qofku hadduu faqri ku dhaco aan waxba haysanin waxa la yidhi zaka la siinaya hadduu deymoobo deynta uu iska bixin kari waayo walghaarimiin zaka u bannaan in la siiyo hadduu ibnu sabiil yahay oo jidku ku go'o zaka u bannaan in la siiyo lacag kaloo muslimiinta laga ururiyo badan baa jirto bangiga ku jirta oo ah qofka muslimka haddii mushkiladan ay haysato in xalkeeda loo helo oo bulshadu ay xaggan xalka ka hesho sida awgeed culimada muslimiinta waxay leeyihiin عقد كسته عقد هو كونتراكت كستم وقشد والربا ومفسوخ سيدي سوء بري قفك هنتي لنا وين هنتي دي سيون لسياه ولو عليا عقد ونو برسين هد هنتي دي علي من اشرتو وحوكو صارت النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع انتو استاقبوا لي ربا الجاهلية موضوع ربا دي وقت جاهلية دا كلا قادتين ردمي وحبا كما جيران وأول الربا أضعه ربانا ربا دا وقوه الرئيسي أن دومينيا وطايدي بولي وأديركي الربا ديسي
عباس بن عبد المطلب بكو باع مشترين جري إنه سيدا بنقياد الربا قاطه فإنه موضوع كله وح الله لي وح عباس العقل قال مقنع وحي الربا صار ريد وحبك ما جيران انتي سونو سو عليه ابن ابوي عباس وحي العقل ربا كو بخيي هذا لا قبل ابو وحبك ما جيران وحن بوليي maxay la fihiisi intiisi una loo soo celiyo من باع بيعا أربى فيه غير مستحل للربا فعليه العقوبة الموجعة إن لم يعذر بجهل ويفسخ البيع ما كان قائما ابن الرشد باو حليه نكي بيع وحكو بيعيي آن حلاشنين الربا ده يدا هداد حلاشته دوات قالوا بيسا آن حلاشنين عقوبة كلول وإن العقاب أبو ليه هدي آن لوغو عذر دارين جاهل نمو بيع سنة وبرية محان الربا قلم محان الربا قلين في الشريعة لح شيء نبقوا حولي الربا قلان ذهب لقوي بيو يا فضة لقوي بيو ذهب لقوي بيو وهاء بهاء يا مقدار سلاق يا عين كان هذا الله كلاقات فضة لقوي بيو أنا والله مد ذهب كيف فضة عهدي قا وحي شوقين هل كان يمكن دولار رضني يا وحنا السبعين أيو دولار كان يوحنا يوتوقع عصب ودتك الوحدة لعجها الدولة دو سميسو الأصل وحي هيد بني آدم كو وحا وحكوك لقدين جري ذهب عادية قال كلا بعد الدنيا ده مركي لقى بحي أي الدولة دي حوقة بدنايا يسوتجي شرقلين أي لين أن كردين الدولار كمريكان كإنترناشونال وح وحلوك لقطه بشرط إنه مريكان كنا أقبله شان يصدق وقيادات هلك الدولار إنه نقضه بنجة تعالى وقفك هدو الدولار صح عليه إنه هلا يوم حي 35 أونس شان يصدق وقيادات إنه هلا مريكان كانوا صحيحي ينوى أقبلين تيبا الله وضي دوني الدولار كي مركز وحكوك لا يبستي muddo markii la joogay dhowr iyo 60kii marayso ayuun baa la arkay Mareykanka iyo dagaalana ku jira horumarna sameeyo dhaqaalihiisu siba war xagee wax iska weydaarteen baa la yiri baalkii ma qaar falsa ah soo duuduubtay doolarka suuqa jooga uu ka badan yahay daabka adeysatay dib baa loo shiray wuxuu yiri shan kale ku dara 40 baa laga dhigay inuu gooyo bal waaya 40 kan kaaga dhignay baa la yiri wax dama sameeynin waa iska watay 1972 ما بقى مدحوينه هذا وحيري ذهب كي يبهل كي وان كلا يرفو تشنا معناه دوام حي وحلو بدلي ورقي دولة اسك سميستين ونقضه إنك هدين اسك سميسنا لعكتنا الصومالية طالع كان الله انفليشن كان مركي بود وين كعينا صومها زي دولة العقبة صوت مركي لكن كان ده انفليشن الدنيا دوردن وحدد شوقة لقبه مركي دولة أمريكا وانا اسك ضاع بعضها دنيا دون أول خسارة وكا حق بدنا وكو صعطا سالدو انت ما ها دولار كوينو ددك وحديري markaynu soo duubno dhowr shay oo waxa la cunaa burka albur bil bur ibn nabiga burku ama wabalkan la yiraahdo qamaxa maxaynu dhaana sareen lagu iibiyo ama shaciirka lagu iibiyo waa heedo kale wax u eg ama timirta timir lagu iibiyo ama milixda milix lagu iibiyo kuwa nabigu wuxuu yiri waa mathalan bimathal in islaagun baa la isku iibin karaa sawaa'in bisawaa'in in isku jaango an yadan biyadin oo marka la kala qaato haddii si asnaaftaasi ay iskhilaafsan tahay sida doontaan baa u iibin kartaan haday yadan biyadan soo duuduub dahabka iyo fidada kow in halka lagu kala qaato mooyaan si kale la isugu iibin karo mar labaad dahab haddii lagu iibinayo waa inuu miisaanka iyo wax walba iska leekaada dahab iyo fidda haddii la isku iibinayo waa laba nooc waa kala badan karaan laakiin weyn hadda la kala qaataa bur iyo bur haddaad isku iibinayso waa inay isku miisaan noqdaan haddana la kala qaataa shaciir iyo shaciir isku miisaan haddana la kala qaataa haddii labada daraf la isku iibinayo dahab iyo cunnada haddii la isku iibinayo marka waana kala badan karaan dibna waa kala dhici karaan waa tijaarada caadiga aynu tijaarayno aad marna bariis ibsato marna hadhuudh ibsato aad lacagta bixinayso haddana waa la kala qaadan karaa waana la kala deynsan karaa waqti dambe laakiin kuwa kani ma aqbalaan المماثلة والتقابض والحلول بشرطية إنه يسلاقي هذا لك لقاطي وقتيا هذا اللي تشوفه وقتي وحن رجينا إنه سكر ماضي استثناءات يربي علماء الشيغان وحبا استثناءات كهذا وصي بحمينه وحن كسو ضوضو بينها ربادو ديمه سمد كيمي وقوم ممنوع
yahuud kiristan iyo islaamnimoba dhaqaalayahanada iyo falasafadana waxay tilmaamayaan inay tahay dhiig miirasho bulshada qayb ka mid ay rabto inay dadka dhiig miirato waan manfac ku jirin ilaahayna wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamayaa war hooy ribo ka cunaya iyo ka qaadanaya wixii noo dhammo isku daro haddaad ribada dayn weydaan dagaal alle iyo rasuulkiisa u soo diyaargarooba sharciga qur-aanka kuma soo aroorin wax kaloo la leeyahay ilaahay baa kula dagaalamaya oo aan ahayn maxay aan ribo ahayn waxaa la yidhi zinada oo aad weliba hooyada ka zinaysata way ka dembi weyntay waxaa la tilmaamay 36 zino aad gashay inay ka weyntay waxaa la tilmaamay 7 lagu halaagsamay inay ka mid tahay waxaa la sheegayaa oo dhammi qur-aan iyo xadiidba inay mamnuuc tahay dhaqaal ahaana inaanay bannaanayn dadku markay dhulkan yimaadeen way fudaydsadeen maadaama la arkay wax walba oo ribo iskaga socda oo mar haddii aad shaqo heshana dee bangiyadu ay aaminayaan inay waxoogaa ku siiyaan ama ribo dadka wuu iska fudaydsaday kaanama aanay dembi ahayn war waddo gaal ha qaadina war iyaga laftooda og in la isdhiig miiranayo any professor bal economicska u tago weydii iyaga laftooda og in la isdhiig miiranayo marka aniguna inta la adoonsadaa baan ku biiraya waay inta badan ay isu dilaan markay shaqo waayaan waayo jaamacaddii ribu ku soo dhigtay guri ribaana wuu qaatay gaadhi ribaana wuu qaatay shaqada hadduu waayo deyntiiba waa laga xaraashaya marka waa inuu isdilaa wuxuu noolaada garan maayo ribadu ma ka dhammaanaysaa maya interestku siduu u socdo benshankaad ku galaysaa sideed lagugu wade lagu dhiig meeranayo intaad bixisay boqolaabkeedna waad bixinaysaa welina sidii baa lagu leeyahy qofkaan ribo bixini waa xor alxuriya alkaamila markaasaad haysataa maanta aad shaqo hesho waad shaqaysan haddaad shaqo weydo waad iska dayn ciidina wax kaa xaraashi mayso ciidina wax kuguma leh haddaad doonto waad iska dhoofi haddaad doonto waad iskaga tegi waxaagee adigaa leh war ribadu adduunkana waa dullinimo ku noolow dhaqaalahaana waa burbur aakhirana waa ciqaab dunida lafteedana ilaahay wuxuu ku yidhi yamxaqu llaahu riba waa baraka tiraya aad ku gubanuun ribaad guri ku qaadan adoo moodaya inaad isla carruurtii baan wadi kari weyn carruurtun baa lagugu itixaamay carruurtii iyo islaantii aad unbaa madaxa isla geliyo berritun baydan kala yaaci doontaa waayo ilaahay baa dagaal kula jirtaa ilaahay suu kuula dagaalamo garan waayi maayo waayana maayo idan adu waxaad lahayd carruurtii iyo islaantaan u danaynaya oo guriga u qaaday ribada carruurtii iyo islaantuna iyagaba ku eryi doona marka lagugu itixaamo idan war ribaha isku gelina haddaad rabtaan ilaahay inay heshiis la ahaataan oo cibaadada la idinka aqbalo oo adduunkiina aydan khasaarin aakhiradiinana aydan khasaarin ribaha gelina wasala allahuma calaa muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin